السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعبي ميل كستو aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Faaqilaada Ciyaaraha. Halo maalin kasta aad kala socotaan barteena YouTube-ka Ciyaaraha Latest Tube. Ku soo dhawaada muuqaalkan cusub maanta koobi doona kulamada ugu dambeeyay ee Champions League ee la ciyaar habeenku calaatiyo dabcan kulamada caawa la filayay la ciyaaro. Waxaan soo kalti eegi doona farqan ku sameey doona kulamada calaatiyo la ciyaarsiiba kulanka derbiga ee Real Madrid iyo waliba naadiga PSG. Wow, waxaan soo kale eegi doonaa kulan ka tirsan horyaalka Premier League siba naadiga Manchester United oo ciyaartay gool ayay gaareen. Guushaasi maxay uga dhigan tahay rajada naadiga Manchester United afarta sare ayaan soo kale eegi doonaa. waxaan soo kale falaqayn gaar ah ku eegi doono Champions League kulamada caawa iyo waliba rajooyinka kooxaha laga yaabo inay ku guuleysan karaan Champions League cagaagan iminka socdo. Wow, أنا عصوبة سبسكرايب نوصل هذا نجا مثلا لايك نودر جلس وين هلا صعب وأنا أحسن سيدا وكلتيا. أهلا وسهلا صعبين ميل كاستيات شوكتان مالو ونكسن هديان كوبلا كلامada على طول عياري كاترسان Champions League kooxda kubadda cagta PSG waxay qaabileen naadiga Real Madrid Los Blancos ahna kooxda ugu guulaha badan Champions League hadii la eego kooxda kubadda cagta Los Blancos ayaad mooday inta badan inay dadaaleen haasahaati waxaad mooday in kulanku ku soo idlaaday eber 90 daqiiqo ciyaaryahan Lionel Messi laacibka kooxda PSG ayaa gool kulaad ka qasaaray naadiga PSG haasahaati ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa gool aad u qurux badan u dhaliyay kooxda kubadda cagta PSG goolkaas oo ka soo shaqeeyay ciyaaryahan Neymar Jr ugu soo laabtay goromada dhaawac halali awgeeda. Imku waxaad moodaa in sida ay kooxda kubadda cagta PSG hal eber jireen naadiga Los Blancos haddii aanayno kooxda kubadda cagta PSG weligooda maysan ku guuleysanin koobkan weyn ee Champions League. taariikh ahaan kooxda PSG weligeeda maysan ku guuleysan Champions League inkastoo ay gaareen finalka Champions League kooxda Los Blancos ama Real Madrid waxa ku guuleysan Champions League 13 jeer waana kooxda ugu guulaha badan cagayo Champions League haddii aan eegno. kulanka kale ee la ciyaar habeenku xaleecha naadiga Sporting CP waxay soo dhaweeyeen naadiga Manchester City waxaana Man City ku xasuuqday kooxda Sporting CP 5 gool eber. ciyaaryahan Mahrez ayaa goolkii koowaad u dhaliyay kooxda kubadda cagta City goolka labaad waxaa sii dhaliyay ciyaaryahan Bernardo Silva goolka saddexaad waxaa u soo dhaliyay ciyaaryahan Foden daqiiqadii 32 halka goolka afraad isla ciyaaryahan Bernardo Silva uu dhaliyay qaybtii ciyaartu waxay ku soo idlaatay 4 eber. qaybtii labaad markii la isku soo laabtay la dhis karay Sporting CP waxay dadaali doonaan ata goolkii albada heli doonaan haasahaatee maysan helin ciyaarta waxaa goolka shanaad u dhaliyay kooxda City ciyaaryahan Raheem Sterling si aad moodayn kooxda kubadda cagta City ay noqoto kooxda abida taariikh ayay sameeyeen 5 kulan oo dibadda ayay badiyeen 5 tabo waa ku runtii la dhigi karo waa conservative waa ku isku caga runtii inta badan waxa la dhahaa naadiga City oo ay soo baxaan wareegga kale ee sideed dhamaadka ama quarter finalka 5 gool ayaad moodaa runtii in adigtay inay ka soo kabsadaan naadiga Sporting CP oo waliba marti noqon doona kooxda City garoonkooda weyn ee Etihad Stadium tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa runtii tababare qabiir u dhashay dalka Isbaanishka inta badan guulal weyn la gaaray kooxda kubadda cagta City waxa kaliya uu doonay in uu la qaado kooxda Manchester City koobka weyn ee Champions League aysan weligeed ku guuleysanin kooxda kubadda cagta ee Manchester City agayo Premier League ama si haddii aanaynu kulamada caawa si la ciyaari doono ka tirsan Champions League kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay martin noqon doontaa kooxda Inter Milan ahna koox ka ciyaarta dalka Talyaaniga siba horyaalka dalkaasi loo yaqaan Serie A waana kulan kale runtii oo fantastika oo la sugayo oo derby labadan kooxood Inter Milan iyo Liverpool waxay kulmeen laba jeer labadaba waxa badisay naadiga Liverpool tani la dhigi kara kooxda Liverpool waxay wada leedahay inay soo bixi karaan Champions League wareega ama qaybta dambe inkastoo kulanka dambe lagu ciyaari doono garoonka leedahay naadiga Reds ama Liverpool Anfield Stadium waxaa soo kale jira kulanka la caawa la ciyaari doono ka tirsan Champions League kooxda kubadda cagta Salvaga waxay qaabili doonaan naadiga Bayern Munich Bayern Munich ayaa soo kale kamid ah kooxaha weyn runtii la dhigi karo waa ay wadeen ku guuleysan karaan Champions League agayo Premier League haddii aanaynu kulanka calayto Manchester United oo martigelisay kooxda Brighton waa kulan kale runtii derby haddii la eego qayb ciyaareedka iminka soo muujinayaan naadiga Brighton qaybtooda ciyaartu waxay ku soo idlaatay eber qaybtii labaad markii la isku soo laabtay daqiiqadii 50
ciyaaryahan CR7 laacibka weyn ee United ayaa gool dahab iyo gool ay u baahan tahay naadiga Manchester United halkaasi ka dhali waana gool la dhihi karo waa runtii fantastic. United ayaa la wareegay inay hogaamiso kulankaasi hase haatee ciyaaryahan Daniel ayaa kaarka casaanka loo tagay daqiiqadii 53 runtii naadiga Brighton iyo ku ciyaaraya 10 qof ayaad moodaa runtii inay dadaaleen waxayna ku sugteen heleen goolkii baraajada hase haatee daqiiqadii dheere extra times siba daqiiqada ugu dambeysay aad moodaa in ciyaaryahan Bruno Fernandes gool kale oo cajiib u dhaliyay naadiga Manchester United sidayna United ugu badisay naadiga Brighton 2 gool iyo ever. United ayaa imka fadhida kaantii afraad iyagoo leh 43 dhibcood kooxda kubadda cagta Man City ay weli hogaaminayso horyaalka Premier League iyagoo leh 63 dhibcood. Liverpool kaalinta labaad 54, Chelsea kaalinta saddexaad 47. barnaamijkii sportiga aad kala socoteen ciyaaraha la test ciyaaray waanaga inta aad ayaad ugu mahadsantiin waqtigiina.